باف بالدي دربان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله منقطع ويدكتي يا ما شاء الله حالته كلا دقنتها شان لا يقبل هذا الله يدين بركين. Unmuted. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درسيga kooban maanta wuxuu ku saabsanaanayaa hadduu ilaahay yiraahdo raaligelinta ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. jinni iyo insi labadaas makhluuq waxaa loo abuuray ilaahay inay addoon u noqdaan. micnaha ilaahay inay addoon u noqdaan waxaa fasiray sheekh caalim ah oo weyn. waxaa la weydiiyey, waa sheekhaas waa ibnu taymiya. waxaa la weydiiyey ilaahay keliya oo la caabudo maxaa loola jeedaa? jawaab oo culus, tafsiir culus ayuu aayaddaasi uu saaray. wuxuu dhahay waxaa loola jeedaa ilaahay keligiisa oo la caabudo in ilaahay keligiisa la raaligeliyo, saasaa loola jeedaa. ilaahay keligiisa raaligelinaysaa, keyrkiisa ma raaligelinaysa. haddii keyrkiisa raaligelinaysa sida labada waalid oo kale, sida xaaskaaga oo kale, sida caruurtaada oo kale, sida asxaabtaada oo kale, waxaa ku raaligelinaysaa oo keliya ilaahay wuxuu raali ku yahay, wuxuu ilaahay raali ka yahay. haddii camalka ama waxa ay ku weydiistaan ilaahay uusan raali ka ahayn, ma raaligelinaysid. marka raaligelinta ilaahay subxaana wa tacaala keliya la raaligeliyo, culummada waxay dhan waa cibaadada dhammaystiran. marka qofku wuxuu isweydiinaya su-aal ah, ilaahay inaan raaligeliyaan rabaa, sideen ku raaligelinaya marka ilaahay subxaana wa tacaala? su-aashaasi culummad badan ayaa ka jawaabtay. nin oo caalim weyn ah wuxuu arkay nin dawaafayo, kacbada ku dawaafayo oo ku celcelinayo ilaahii hal anta raadin cani, ilaahu raali ma iga noqotay, ilaahu raali ma iga noqotay, ilaahu raali ma iga noqotay, ilaahu raali ma iga noqotay. marka si hoos uu u dhahayay laakiin la maqli karo. ninaa gadaashiis socday oo rocleynaya isagana oo dawaaf samaynayay oo sheekh caalim ah. sheekhii caalimka ninka wuxuu ku yidhi yaa haada, midkan dhahay ilaahu raali ma iga tahay, su-aalaan ku weydiina wuu dhahay. horta adiga ilaahay ma raali gelisay si ilaahay uu raali kaaga noqdo? gadaaluu u soo fiiriyey, wuxuu dhahay man anta, yaa tahay? markaasuu yidhi su-aal keliyaan ku weydiiyey, waxaan kaa maqlaya adoo dhahayo ilaahu raali ma iga tahay, ilaahu raali ma iga tahay. adiga ilaahay ma raali gelisaa si uu ilaahay raali uu kaaga noqdo? culummada waxay yidhaahdeen raaligelinta ilaahay subxaana wa tacaala waxa waaye inaad samayso ilaahay wuxuu rabo. samaynta ilaahay wuxuu rabana waxa waaye ilaahay wuxuu amray oo dhan inaad samayso. salaada ugu horeyso, ama shanta arkaan markaa fiiriso, towxiidka kadib salaada lagu xijiyey. sababto ah waxay dhaheen culummada waa salaada waa camalka tusinayo, muujinayo qofkan inuu ilaahay raali gelinayo. salaada waqtigeeduu ilaalinayaa, salaada weligiisa ma qalaynayo. ilaahay subxaana wa tacaala balan waayo, ilaahu balan la leeyahay. lidaalika waxay dhaheen culummada, waa soo kookoobayaa waqtiga oo yar ama igu yar dartiisa. waxay dhaheen meelo waxaa jira ilaahay subxaana wa tacaala, acmaal waxaa jirto ilaahay subxaana wa tacaala uu aada u jecel yahay oo ilaahay raali uu ku noqonayo. addoonka acmaashaasi hadduu ku dadaalo, ilaahay subxaana wa tacaala insha allah raali uu ka noqonaya. ilaahay markuu kaa raali noqdo, markaasi ilaahay wuxuu ku furayaa albaabada khayrka oo dhan, raaxa ku noolaanaysaa. acmaashaasi nin oo caalim weyn ah ayaa tilmaamay. wuxuu yidhi hadday acmaashaasi saddexda ah ay ahaan lahayn, annaga adduunka inaan sii joogo maba jeclaysan lahayn. acmaashaasi oo saddexda ahaan idin sheegayaa, meeshaan kusoo gabagabaynayaa. wuxuu dhahay lowlaa halaatha ma axbabtu baqaa'a addunya.
saddex hadday ahaan lahayn ma jeclaysan lahayn adduunka inaan ku noolaado. maxaa waaya marka saddexdii? wuxuu dhahay qiraa'at alqur'aan, xigmadaa meesha ku jirta, waa qur'aanka akhriskiisa maalin kasta. laba muxuu dhahay? wuxuu dhahay alsalaa, tukashada salaada, waa 5 waqti iyo salaatuleylka, waa 2. saddexan wuxuu dhahay dikrullah, carabkeyga inuu ku qoynaado dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala. saddexdaasba haddaad samayso, ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi ibraahim waa ku ducaysan jiray. wuxuu dhihi jiray rabbi ijcalnii muqiima asalaa, ilaahu subxaanahu wa tacaala waxaad iga dhigtaa mid salaada oogaya, ma aha mid salaada tukanaya. oogaya waxaa loola jeedaa salaada ilaalinayo, waqtigeeda waqti ahaan, axkaamteeda, hay-aadkeeda, sunnooyinkeeda, faraa'isheeda, waajibaadkeeda. salaada qofka si fiican inuu u daraasayo waa. marka salaada aad ilaaliso maxaad xoojisay? xiriirka adiga ilaahay. marka imaamkan fiir wuxuu dhahay kow qur'aanku ka bilaabay, sababta qur'aanka ilaaha kula hadlaya. marka kitaabka ilaahay furto, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani arraxiim, ilaaha kula hadlooyo, ilaahay hadalkiisa waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaah wuxuu leeyahay mahad oo dhan anay ii sugnaatay. ilaaha dhahayo maxay ugu sugnaatay? sababta caalamka oo dhan anaa abuuray. rabbi alcaalamiin waxa waaye waxa aniga iga haroo dhan anaa abuuray, marka anaa mahadsan. ilaahay marka aduu kula hadlaya. marka haddaa fahamto macaanida qur'aanka waa ku raaxaysanaysaa. marka kow maxaa waaye? ilaahay inuu ila hadlo, waa macaansanaya, saasuu dhahay. 2 wuxuu dhahay alsalah, waa salaadii, salaada adaa ilaahay la hadlaya. markaas markaad ahdo allahu akbar, howl kalaad gashay, adduunkaad ka tagtay. micraaju lmu'min ayaa loo bixiyay salaada. micraaj waxa waaye mu'minka waa baxaya xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo malakuutu samaawaat. ruuxdaas meeshaas marka qofka waxaa la rabaa meelahaas inuu ka fikiro, adduunka inuu halmaamo, wixii culays ku haysto dhan inaad halmaanto. rasuulka calai salaam caado waxaa u ahayd markii kurbo ama culays soo koro, markiiba wuxuu ordi jiray salaada xaggeeda. markuu salaada xirto, maanta dadka qaarkood kaniiniyaalay cabaan, stress ku dhaco, gaalada khamray cabaan, drogsay isticmaalaan. laakiin qofka mu'minka ah mar alle markii stress, culays, murugo, madax xanuun markuu ku dhaco muxuu sameeyaa? allahu akbar. waa soo teleefon diraayo oo kale. telefonka markaad diraysa nambaray wacaysaa sooma? nambarka ilaahay lagu waco waxa waaye allahu akbar, ilaahu adaa wax walba ka weyn. kurba haddii i haysato, ilaahu adaa ka weyn. xanuun hadduu i hayo, ilaahu adaa ka weyn. deen haddii lagu leeyahay, ilaahu adaa ka weyn. hadduu qof i dhibaayo, ilaahu qofkaas adaa ka weyn. hadduu deris i dhibaayo, ilaahu deriskaas adaa ka weyn. haddii qof qaraaba i dhibaayo, ilaahu qofkaas adaa ka weyn. qof saaxiib haddii i dhibaayo, ilaahu adaa ka weyn. saasaa u hadlaysa, ilaaha la hadlaysaa. markaas inaad fahamto waa, aad ku raaxaysato, waa qaybta labaad waa. dikriga maxaa waa qaybta saddexaad? dikriga waxaa waa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fadkuruunii adkurkum, fadkuruunii adkurkum, ixusa. marka waxay u dhexaysaa qur'aankii iyo salaadii. saasaa dhihi kartaa. saad qur'aanka ilaaha kula hadlaayo waana dikri, wa inahu la dikrun laka. qur'aanka waa dikri, waa qayb ka mid ah dikriga. qur'aanka adaa ilaahay la hadlaayo, ilaaha aduu kula hadlaya. salaada markaa gasho, ilaaha la sheekaysanaysa, wax habtaa weydiisanaysaa. marka ka waran hadda haddii lagu sheego oo lagu dhaho teleefonkaasi, qofaa teleefon raadinaya, muxuu u raadinayaa? wuxuu leeyahay xanuuna i hayo, waxaa la iisoo sheegay dhakhtar oo hebel la dhaha, qof teleefonkiisa haya ma jira. dhakhtarkaasi waxaa la ii sheegay xanuunkan inuu takhasus u leeyahay oo markiiba uu maaragtay uu ku daweynayo. teleefonkiisa markaa hesho waa farxaysaa. maxaa u farxaysaa? sababta teleefonka saabtaa inaa wacdo, waxaa rabtaa xanuunkaasi dhakhtarkaasi inuu daweeyo. marka ka waran telefoon number oo dawo kasto aad ka heli kartid dhakhtarkiisa ka waran. dhakhaatiirta allaha abuuray waaye, allaha dhakhaatiirta abuuray aad telefoon kasto oo dhakhtar aad wici lahayd waxaa ka weyn, iyadoo ay bannaan tahay dawo in la doonto, oo nebiga calai salaam uu yiri way bannaan tahay, haddana dawadii ilaahay subxaana wa tacaala ka doono. si loo doontaa allahu akbar, taas waa telefoonkaas.
marka allahu akbar dhahdo ilaahaad wacday markaasaad furaysaa marka maxaa weydiiso waxaa rabta ilaahu xanuuna ay hayo ilaahu xanuunka iga qaad ilaahay subxaanahu watacaala addoonkiisa xadiis waxaa jir nabigu u yiri addoonka ilaahay markuu gacanta kor u taago ilaan salaadu waa ducaa salaada macaani badan ay leedahay ilaahaad la hadlaysaa waa xiriirka adiga iyo ilaahay waa duco markaad kor u taagaysid oo salaada dhexdeeda ilaahay aad wax ku weydiisanaysid ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam gacmo kor loo taagay oo qalbigan uu nadiif yahay ilaahay ma soo celiyo qaybta saddexaad oo ugu dambaysa waxa waaye adikr dikriga waxa waaye waa badan yahay macnaha waxaa jira la yidhi camal ayaa jiro acmaasha dhan markaa fiiriso camal waxaa jiro weyse aan u baahnayn fadhi aan u baahnayn istaag aan u baahnayn sida salaadoo kale rukuuc aan u baahnayn sujuud aan u baahnayn in aad qubaysato aan u baahnayn in oo masaajid aad ku dhex jirta aan u baahnayn masaajidka banaankiisa inaad joogto aanan u baahnayn suuq maaragtay inaad u socoto suuq adoo dhex socda aad samayn karto guriga adoo jooga aad samayn karto camalkaas waa maxay waa dikrullah waana camalka dadka badana ay dayacaan waa camal marka qaarkooda sahlan laakiin faa'iidadiisu ilaahay aa kugu jeclaanaya dikriga ilaahi subxana wa tacaala kalimataani khafiifataani cala allisaan kelmad haddaad ku dhawaaqdo khafiif ah thaqiilataani fi lmiisaan miisaanka markii la saaro kelmaddaasi way culus tahay dan xabiibataani ila araxmaan ilaahay kalimaadkaasi wuu jecel yahay oo qofka dhahaya ilaaha ku jeclaanaya adiga ilaaha kugu jeclaanaya subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim haddaa ku celcelisid subxaana allahi alcadiim ilaahay waa dhammaystiran yahay alla weyne nasahan wax walboo nuqsaan ah ka fog subxaana allahi wabixamdih allahaasi wax walboo nusqaan ah ka fog ayaa mahad ku dheehan waa mahadsan yahay wax walboo aan rabo ayuu isiiyey wax walbo aan rabo isiiyey markaad dhahdo waa mahadsan yahay maxaa dhacayo lain shakartum la asiidannakum ilahay wuxuu yidhi haddaad dhahdo alxamdu lilah ama subxaana allahi wabixamdih waxaad haysato hadduu caafimaad yahay ilahi wuu kuu ziyaadinayaa ziyaado kalimayaa maya ilaahi wuu kuu barakeenayaa barake kalimayaa maya ilaahi wuu kuu xifdinaya nicmadaas ilaahay nicmo indho aad wax ku aragto ku siiya nuurkaasi aad wax ku arkaysid laba nuur ayaa jirta nuur oo aragtida ah iyo nuurul iimaan ah labadaba ilaah kuu ziyaadinaya kii aa wax arkaysay waxyaalaha wax lagu fiirfiiriyo indhaha inaad wax ku fiirfiirisood ku aragto sooma ilaah kuu ziyaadinaya nuurul iimaan oo ah aragti fog oo kan indhaha aan ahayn oo aragti ruuxi ah ilaah intaasuu kuu ziyaadinaya markaa subxaana allahi wabixamdih aad dhahdo saddex faa'iidaa helaysaa kow waxaa haysato oo lagu kordhiyo nambar ahaan laba in lagu barakeeyo wax taya leh oo baraka leh ilaahay inuu ka dhigo saddex in laguu xifdiyo oo ilaahay uusan kaa qaadin intaasaan kusoo gabagabeynayaa aquulu qowli haadaa ridaha ilaahay ma rabtaa ilaahay inuu kaa raali noqdo ilahay hadduu kaa raali noqdo albaabadiisu kugu furayaa ma rabtaa inaad samayso saddexdaas samee qur-aanka akhri maalin walba micnihiisa fahm laba qur-aanka markaa akhriso maalin kasto salaad kastaysan kaa tegin salaatuleilka sunna ahaan habeenkii ilaahay subxaana wa tacaala u soo kac saddex maxaa waaye dikriga afkaaga ha ku qoynaado oo nooc walba ah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله كبركاته ما شاء الله.